عذوران لفلان إيو حلا ذوي عشقو عذو حولي يا هي نفتينو عذاب شيء عذوران لفلان إيو حلا ذوي عشقو عذو قد كسيتو سو كجرا انجينير ديقسي ayaynu maanta insha Allah barnaamijka ku bilaabeynaa ama inuu aftaxayo barnaamijkii wareyso haddii Ilaahay ka dhigo markaas si toos ah iminka qadka ugu jira iyo waxa kugu soo dhaweynaysa marka koobaad barnaamijkii wareysan u bixiyay moogti magaca soo bixisay wareyso show magaciisa ma arkin marba status waxa arkay musiiti raacimba barnaamij hore wuxuu gudoomiyaha keenay oo diyaar barnaamij hore jiray oo loo jiray xulo dadka maaragtay dadka luuka la xulanay barnaamijka waxa ma kama soo xulan waxa kama soo xulan barnaamijka internet ma arkin amalena waa mashquul ma arkin barnaamijka sida horeba kugu sheegay waxa la isweydiinayaa 4 su'aalood baa la isweydiinayaa marka 4 su'aalo iska natural bas ka noqonayaan waxa adigu 4 su'aalo iska dee caamiyana oo aan brevetki arrimaha khusuusi khaaska aan ku jirin sidoo kale barnaamijku 3 su'aalood waa mustari ka jawaabtaa waa ku waajib afraadna adiga ikhtiyaarkaaga ka jawaabtid iyo inaad ka deysid iyo intaada ka dooranay horta marka hore asxaabta magacaaga iyo meesha joogtid balbar horta ilaano iskarana waan gartay saxaabta horta waa soo dhaweynaa barnaamijkan oo ku faraxsana marka hore inaan ka qayb galo Sir Cabdinaasir barnaamijkiisa ila maxaa barnaamijka soo waran sameyn wareyso waan ku faraxsanahay waana qof ugu horeeyay ka mid noqonayna waan jecelahay waana hawasa aragtan magacayga waxa la Faysal Cabdi Cilmi magacayga saddexan oo idaabi la bixin waxaan ku magac dheeraa Engineer Deeqsi aan joogaa magaalada Muqdisho caasimada ummadda Soomaaliyeed caasimada dalka wadanka Soomaaliya marka waa ka soo dhawaada saagal sax marka dadka saa u sheegtay Muqdisho joogtaa ninkan magaciisa ka garataa maamana naanistiisa bada Engineer Deeqsi baa leeyahay marka hablaha waxa leeyahay ninkii gacanta aad ka weydin ka caawinayay ninka Deeqsigaadi gacan furiide إلا حد وقع فري. إنه زاد ده من أبلاد لنا يقصوا يومان ده ده نيل شهاد كان سان كان. كوابد ورسم. ما هبلا حوق شهاد ما يبلان وهبلونا سوي. وقلت وزلوا هنا هذه ونكسي هذه أي هنا قعدت أفرنت هذه. والله كان عمل. ما أحسن مجد. نيو سؤال كوبارت waxaan lagu weydiiyo tamarka waxa laga soo galiya xagga caashiq iyo jacaylka laga soo galiya kow xasaawa saasuuti xasaawani waa isqurana xoga aad uma badsada laakiin sax mar baad gashaa markii jaanis weelade waa markaas fulus waa lacagtan adduunka lacag baa kala xukunta xagga lacagta loo bataa أصحابي يمشغول يوحز وقت دومس أد دروا مرمر لكن حبد أمر لبا ما دين دي حبد ده بس كيف عندك لو اللي تصبنا عرض ده نقول له قيمة نجلين شحاري وين هذا الجودية بيبي هلك بركة حرد ألا نجارسي بقى Engineer Deeqsi oo su'aasha koowaad waxa ku leedahay maadaama hasaawa isku gacantihiin inantii ugu horeysay ay ku tiraahdo waan ku jecelahay ama adigu aad ku tiraahdo waa ku jecelahay ma xasuusto inantii aan ku dhamisay iyadoo u dhax labadaba ama iyadu kugu tiri waan ku jecelahay ama adigu aad ku tiri waan ku jecelahay aniga dhaana hore amalena aniga waqti hore ahayd midaan ku dheh صح وحسستها مدرس marka maalintii aad oranaysay ka waran sidee kula ekayd ma yara adeeg bay hayd ma fudeed bay ku ahayd niyo ma fudeen dana laacay waqti ugu qaadatay nada mala habeenada baad ka fikiraysaa ma dhaweyn ya habeenada baad ka fikiraysaa ma bismillah urad ta inaga is arkayna aan dhihi way kadib telefoonka dheh
Sasa wanaagsan mo. message ma u qortay mise waad garaacdo mise waad ku tiri Caadi. Call. The message waa asde diro ignore baliskle call caadi. Dalq. jacaylkaas muddo dheer buu ahaaye ma lagugu diiday mise waa adag waa lagu ogolaaday Niyo in badan socodin marka dambe xabadda lagu yaqaano. laga boobay sax waan gartay maadaama niyo dhacan tahayba xabadii ugu horeysay maadaama jacashaha ku tiri waa magaalahaadiiba Sasa calafkeeda meesha ku ekaa waa xabad kale ku yahay isla markiiba. adiguna miyaad yaraysanba Ya. adiguna miyaad yaraysan mid kale markii gashay maxay dawdigade nag baxdo daneysatay miyay ka soo wareegin malena waqti badan mid kale hadana dugnaag badhoore. Okay taas waan gartay intii aad noolayd su-aasha labaad waxay ku oranaysaa intii aad iminka dee noolayd muddo dheer iminka ma aha adigu ilaa nin la yaraa baa tahay Sax. caqabadihii ugu waaweynaaye ka hor yimaada noloshaada maxaa hal iyo laba midaad naga xasuusatidba Wallahi caqabad iga hor imaaday inta wax garanaya. intaad garanaysa intaa xasuusanaysa caqabad aad leedahay caqabadaas caqabad weyn bay ahayd Wallahi qad soo qaban kara caqabada xasuusto waxa soo mari kara dee waxbarashada adkaato dee mashquul iyo waxyaabo kale saas leemahan caqabad hebla saas hadda ma xasuusan karo. hadda ma xasuusan kartid Sax jira laga yaabaa dee. sax waan gartay su-aasha saddexaad waxay ku oranaysaa injineer Dugsiyow adigu shakhsi ahaantaada jacaylka iyo lacagta keebaa danaysaa in lagu yiraahdo qofkaasi uu jacayl maca lacag buu wataa iyo in jacayl kii oo qalalan lagu soo bandhigo ma jacayl lacag jacayl macno naag bira lacaga iyo naag lacagtii wata labadaba ma jacayl marka maya dee adigu midba jacaylku maaha waa midna waxay ku leedahay lacagtii baan hayaa midna waxay ku leedahay jacaylkii baan hayaa keebaad raacay le markaadna markaas dee jacayl lacag maxay taraysaa dee naag lacagteeda waraabaa ka qayliye lacagayste injineer Dugsiyow hablo badan baa ku maqlaya hadhowto in lacag ka raacday ma dhici kartaa niya lacagtaada iska haysa dee lacag maahan haddaad jacayl haystid ii kaale haddii lacag haysatidne oo jacaylan ku darsatid dee markaas waa laisku heli maaye kaale waa sax laakiin fasti waa jacaylka marka adigu xagga jacaylkaad ku yacday dee lacag dee haddii dhammaanaysaan waxay tarta ma lahane hadda tan lacagtan tan kale biil kaama rabto waxba kaama rabto adiga ku masruufaysaa injineer waad seexanaysaa beerkaad seexanaysaa mar rabo naanga dee anaa waxay ku leedahay ninka anaa qabe dee asii ma qabine way ku amraysaa dee waxay ku leedahay maya hore anaa lacagta geeyo anaa maxaa ii geeye marka sax su-aasha ugu dambeysa ee maaragtay afraad ee ugu dambeysa maadaama hablo badan maadaama nisin galaa tahay oo hablo badan dee halkan weliba dee gobolada waqooyi ay kula su-aasha afraad ee ugu dambeysa aan ku weydiin waxa weeyaan inan cad iyo inan madow keebaad jeclaan lahayd niyo madow maqaarteen ku beemsiga anaa madow naag madow maqaarteen naag cad doodaa laakiin cadaanta kale dee mid cadaana ma jiro lahaa laakiin mid aad iscadaysa ama iscadaysa dee isma keeneen sax soomaalida waxay ku maamahdaa doqon iyo habeen ba madow maya cadaanta xoogaa waa nuur dee hadduu qofku nuuraya naag nuur markaasi ku nuureen laakiin nin asigu xoogaa ragga dee badanaa aad u nuuraane waxay dambe abdid iska dhigi maahane sax naagta inay iga cadaato inaad ka cadaato maadaama nin madow tahay madowgeedina waa dahab dee adargii madow baa la raadinayaa dumar laga tegi warkood lenchen bay noqdeen raggii madowaa nin cad waxaa lanaag wax ma dhaabo rag cadi dhegeysanayaan ku fogaadane gadaa rag caawa midho halkaa waxa gabdhaha u diine
صح halkaa waxay noogu eegto su'aalihii afartii su'aalood ee barnaamijkan doonayna inaan ku weydiino xaalxaalkii unbaa inoo harsan iyo gabagabadii waan gartay niyo muqdishoad ku nooshahay anigu lafteyga burcan ku noolahay dee muddo dheerna waa isnaqaanaa ka waran dadkan gobolada waqooyi jooga ka waran say kula muuqdaan dad iska adag miyaa hadalkoodu ka rafan yahay niyo waa si wanaagsan dadkan xagga gobolada jooga ani ahaanteyda markaa fiiriyo waa dad horta waa afkooda ila adagya luqad ahaan marka la fiiriyo markaa hadaleysiin ama la sheekaysanaysid waa adagya balse hadda dadaan ka aqaano qaar aan isla shaqeyno weliba rarascaanood qaar kamid ah waqooyi ka yimaadeen waa iska qalbi furan yihiin hadalkooda ha adkaada maahani waa dad iska qalbi wanaagsan adigaba kamid tahay dadka lanka bartay kamid yihiin luqada baan kula duwana laajadaas oo adag iyo fudeed anaga waxay nala tahay midiina inay adag tahay adigana waxaa laga yaabaa inay mideena idinla adag tahay sax si wacan qolaba dhan bay ka adag tahay ani marka laajadiina adag tahay dadkaas qalbi wanaagsan oo dad sharaf leh iyo madaxa inay saarayeen badankood lacala iminka haddii barnaamijka inan kaa soo codsato xaggan waqooyi ay kugu xujayso inaad xaggan timaadid si aad u guursatid ma iman lahayd si aad u guursatid oo kadib aan la soo yaaco xamara la keensaday noqod ma jiro burcaa la degaya ama hargeysa niyo meesheeda kama dheeraan kare isaan ku barbaare laakiin xagga waan tegey waa u socdaaba barbaa insha allah waa rajeyna inaad tigo haddii soo dalbatana gabar oo meelahaasi dee man diidayo wax walba isfahan anaa aqaana dee intii rabta iyo dee xagga rabta meesha lagu dhaqaayo kulli horta waa inaad isfahanto oo xarigay kusoo dhacda shaba inay horta soo gasha waa dee kadib le degnaashi waxaas markaasay noqonayaan meesha la degaayo sax guntii gabagabadii barnaamijkan adaan kugu furay Janay Deeqsiyo siduu kula muuqdaa barnaamijka maadaama su-aaluhu laftigooda iska qarqaray baa haya niyo walaa barnaamijka waa ila raban yahay barnaamij wanaagsan oo leeyahay hore socod insha allah usii rajeynaa saxaabtana u furo waxaan rajeynaa inaa la socon doono intooda dhan dee amba dhegeysta waa kamid noqon doona hadda anaa la dhegeysanaya dhegeystayaasha waa kamid noqon doonaa qof walba ra'yigiisa iyo television waa soo dhaweyn doonaa qofkii dee hadalkayga dhaliil u arkana waa ka raargeleyna qofkii soo dhaweyna waa soo dhaweynaa signa marka soomaali meel la joogto waa salaama madaxaynay saaran yihiin sax badanaa nin muqdisho waxaan kugu arkaado ceelasha biyo ma xaafad baa mise waa niyo degmo ahaan inay u xisaabsantaa jeclo degmo oo dhankan Shabeelle hoose ka tirsan tahay maamulkaas marka magaalada waa geeskeed badanaa waa noo iska dalxiis iyo baashaali marka waqti helaa meesha iska aadaa laakiin muqdisho ku nool sax ugu dambeyntii jawigeeda degan yahay Janay Deeqsiyo waliba habla cad baa kusoo dhaweynaya maadaama habligu madood ku laaday ormaya لكن مستقبلك هيقلا شيء اسمه صح مستقبلك لو ذاك مد مذو لما وذاك دي من عاد حقات لين صح مد مذو انا مذو يمد مذو روح مذو اسمك يعني سي المعاد عاد نوق دشان اوكي اللي حبد عاد صح marka soo dhawaadaan leeyahay reer waqooyiga deewan soo dhaweena muqdisho halkeed waa degan yahay alxamdulilah waay ku soo dhawaada waan soo dhaweynayna waa muqdisho caasimadda ummadda Soomaaliyeed sax ay aad iyo aad baa mahadsantahay aad baa kaaga mahadcelinay waqtigaada iyo hortay ay gudoomiye insha Allah salaama dhamaan saabtana hada ma santahay way sax